بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة إن شاء الله تعالى سيدة الشيخي وحيكون سابسنتهي الاستغفار، بعض فوائده وصيغه. استغفارتا هي فائدوين كذا قار كمده iyo qaabka loo istighfaarsado. intee qaab ayaa loo istighfaarsan karaa? Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu quraanka kariimka inoogu sheegay aayado badan. haddaan bini aadan nahay inaan gafayno oo aan khaldamayno. aabaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaa halmaamay, markaasuu khaldamay. innaguna ubadkiisii baynu nahay inaan khaldanno oo lugtu inoo fakato oon simbirraxanno. waa wax dabeecad aynu leenahay wey. weliba sida nebigu sheegay sal alla alayh wasalam, khaladka aan leenahay ma yara, wuu fara badan yahay. kullu bni aadam khataa. ibni aadamka oo dhan waa mid gaf badan, waa mid dembi badan, waa mid aad u khaldama. maadaama khaladkeennu badan yahay, allah tabaaraka wa tacaala laba mid ayaa ruuxa mu'minka ama muslimka laga rabaa: inuu toosan yahay oo hagaagsan yahay oo jidkii loogu talagalay hayo iyo taacadii ilaahay, iyo in intuu khaldamay uu khaladkii ka soo noqonayo. labadaa ayuu garowsho ku leeyahay. midna garowsho kuma laha. intuu khaldamo inuu khaladka sii wato oo ku madax adaygo, middaa garowsho kuma laha. waa ka allah tabaaraka wa tacaala aayadda qur-aanka inoogu yidhi: qul innamaa yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faاstaqiimuu ilayhi waاstakfiruuh wawaylu lilmushrikiin. inaad toosan tahay iyo inaad khaldantay ood ilaahay dembi dhaaf weydiisanayso, labadaa wixii u dhaxeeya waa inaad khaldantay ood khaladkii ku sii socoto. taa marka garowsho kuma lihid. allah tabaaraka wa tacaala marka bimannihi wa karamihi wa ixsaanihi, maadaama uu ina yaqaano, ilan isagaa ina abuurtay, alaa yaclamu man khalaq, ina garanayo inaan khaldamayno oo khaladku inaga dhacayo, inaguma nicin. khaladkii laynuguma tuurin, bal alla wuxuu inoo jideeyey khaladka inaga dhacay si aan ku xallin karno, si aan ku hagaajin karno, jidkii aan ka baxnay si aan ugu soo noqon karno ayuu alla inoo jideeyey tabaaraka wa tacaala. taasina waxa weeyaan waa mawduucan hadda aan ka hadlayno oo ah al-istigfaar. istigfaartu, kelimatu al-istigfaar iyo mushtaqaadkeedu, macnaha laga wadaay waxa weeye qur-aanka kariimka ah laba sibay ugu soo aroortay. mar waxay ku soo aroortay qur-aanka kariimka ah ayadoo keligeeda oo ayn towbad la soconin. marna waxay ku soo aroortay iyadoo lagu lamaaniyey oo la socoto towbaddu. labada xaaladood istigfaartu laba macnay kala yeelanayaan. markay keligeed tahay
كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله تعالى لولا تستغفرون الله. توبة مركا الله ما صعد مركاسي معنى لهذا مرنا وحا كل مان توبة با كل مان. ومثلا وحا مثال نقول قوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. مركا وحا الله صعدتا توبة با الله صعد إلى دور ميلود بالقرآن كجسوا أرورت. مركي الله صعدته كلي جد مركي تاعي واستغفارته كلي جد أي تاعي معناه هذا وحويان وتوبة دي معنيه توبة دنوي وضتها وحيلا دير تاعي دم بداف ويديسي أصل كلمة أستغفر الله معناه هذا وحوي رافد بان دلبيا عفي بان عصانيا يوحي أن قلي دنبقي اللي قد رافان ويديسانيا. كلمة استغفار أصلهان تودواسدا، لكن مركات هذا مرتنا أستغفر الله وأتوب إليه معناه هذا وحويان معنوه مركا وكد ونانيا. كلي قد مركتها مركا لابا معنى بوي حنبار سنتها توبة معنى هذه هي استغفار معنى هذه بوي حنبار سنتها مركا كلي قدها. كذلك كلمة التوبة وان توبة كاني وتوبة كاني أتوب أيضا مركا كلي قدتون استغفار لسعني معنيه توبة استغفار تيوضا صعطي حنبار سنتها. لبدا كلمة ميدو بلتا كلام مركي قولي كالنقطة تي كلام معنى هذا وضطا مركي يسوي مادانا ميدو بمعنى قولي مركا وضطا واسيدة كلمات كمسلم إيا مؤمن وكلا كلمات وحا كتشرا شرعة كتشرا مركي يسوي مادانا معنى كلا قدسان قادانايا مركي كلام مقايهين ميدا كلام معنى هذا أي حنبار سانيس. كلمات كوحا كمدا استغفار يا توبة هيا كمدا مركا أي كلي تهي وحانري توبة دو كلي لمعنى تهي ووليب وحي وضطا هدنا طلب المغفرة من الله إلهي ودوي ديسان يسو إنو كور رافو ومحوي هي وهو محو الذنب وإزالة أثره ذنبك يولغاتيرو iyo dambiga wixii ka dhashay raadkiisii oo isagana laga zuuliyo iyo wiqaayatu sharrihi dambiga sharki ka dhalan lahaa iyo dhibaatadu la imaan lahaa laga ilaaliyo intaas oo la isku daray baa macnaheedu waxay tahay astaghfirullah haday kaliye tahay iyo haday toobadu la socotoba waa soo noqosho ay hadana la socoto ilaahu waxaan galay ii dhaaf dhibka ka dhalanaya iga ilaali aathartiisa iga zuuli waxa soo dhabay xambaarsanta. labada kelima markay wada joogaan waxay noqonaysaa macnuhu marka waa isbedelaya labada lafdi markay isla socdaan. istighfaartu marka waxay noqonaysaa sidoo leeyahay ibn qayyim alayhi rahmatullah talabu wiqayati sharri ma mada dambigi horay u dhacay ilaahu ii dhaaf sharkiisa iyo dhibaatada ka dhalanaysana iga ilaali. wa atuubuna waxay noqonaysaa toobaduna marka waxay noqonaysaa arrujuu'u wa talabu wiqayati sharri ma yakhafuhu fi almustaqbal min sayyi'ati a'malihi khaladaadka aad samayn doonto xumaanta ka dhalan doontana waan ka noqonayaa waay oo marka astaghfirullah wa atuubu ilayhi midina waxay ku saabsan tahay dambigii tagay ee hore u gashay wa atuubuna waxay ku saabsan tahay ka dambe ee soo socdana waan ka noqonayaa ilaahu dhibkiisa iga ilaali. marka waan noqonayaa khaladkii waa ka noqonayaa kii horena ilaahu ii dhaaf waay. markay keligood kala noqdaanna mid walba ka kale macnihiisa ay xambaarsan tahay. sidaasi waxa u sharxaya al-imam ibn qayyim alayhi rahmatullah. istighfartu أهمية بيلادها مهمة بيلادها
ahmiyaddeeda waxaa ku tusaya qur'aanka kariimka ah aayada aad u fara badan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku faray oo ku amray oo ku ammaanay ilaa nabigeenna la amro salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo ambiyadii ilaahay tabaaraka wa tacaala ulul casmiga ahaa ee ugu fadli badnaa rususha ayaa ilaahay dembi dhaaf weydiin jiro astaghfiru la dhihi jira rabbi ighfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beyti rabbi ighfir lii waliwaalidaya walilmu'miniin tadamba waa ibraahim toorana waa nebi nuux ambiyada kuwii ugu fadli badnaa baa istighfaartu dhaqankooda ahayd nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh weliba geeridii nebigeenna aakhiru qaybtii ugu dambaysay ayaa ilaahay amray inuu istighfaarta badsado sida suuraddii u dambaysay shay uu inagu tujinayay imaamku jazaahu allahu khayran ee rabbi tabaaraka wa tacaala ku amray nebigeenna إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيد ابن عباس ليه هي سورة داسي مركي سودكتي نبي وحا لوغو شيغا هي عمري قاقي وارد ماذا قبا قبا تشوكتاي بطسو استغفارتا يا التصبيح دا يا حمدلة دا بطسو marka waxay yiraahdaan waxa xadiiska nabiga ku soo aroortay sallallahu alayhi wasallam markii ay suuradaas soo degtay wuxuu galin jiray rukuucda iyo sujuuda ayuu galin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ducada iyada marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam baa la amray anbiyadii baa la amray in badan bay quraan ku soo aroortay marka la rabbi tabaaraka wa tacaala dadka mu'miniinta muhsiniinta muttaqiinta jannada ilaahay uu u qoray jannada iska leh ayay tilmaamahooda ka mid tahay inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan walladina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa sifatka dadka mu'miniinta oo muttaqiinta jannada ilaahay uu ballan qaaday markay dembi fool xun sameeyaan ama naftooda ay dulmiyaan ilaahay bay xusuustaan kadib ay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan yaa dembiyada dhaafoon alla ahay xumaantii ay sameeyeen ayagoo garanaya inay xun tahayna ma daa'imaan oo kuma madax adaygaan way ka soo noqdaan waa midaan lahayn ruuxa muuminka garowsho kuma leh inuu dambaabo dembigana og yahay haddana ku sii madax adaygo garowsho kuma leh laakiin inuu dambaabo uu dambaabi bini aadam buu u yahay نفي الشيطان باكو تعلق يعني وحويان وحي نقول كرتا وح كسروبيا لكن إنه سي وتاي مدة إيدا أو مدة وسنكر وشاه كلها أهمية تحقتصي استغفارتا الله تبارك وتعالى قرآن كريم كامل كم إذا وحوس كل مانية توحيدك استغفارتا توحيدك أصل كي دين تأه أيه وحلو الله مانيا استغفارت وحكم إذا قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله وحلو حجي واستغفر استغفارت الوحج وحكم إذا آيات مركز الآخرين فاستقيموا إليه واستغفروه استقامة أصل وحاو التوحيد كدبنا استغفارت الوحج وحكم إذا الله تبارك وتعالى وحي ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم لا إله إلا الله محاكو حقا استغفروا ربكم saas daradeed baa labadaasi isku xiga oo tawxiidka inuu ruuxu xaqiijiyo in badanna ilaahay dambi dhaaf weydiistay wuxuu leeyahay sheekh islaam ibn taymiya alayhi rahmatullah ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار دينته waxay ku taagan tahay waa tawxiidka oo la xaqiijiyo laana daacadi baa galis iyo ruuxu dambiyada uu galayo oo uu ilaahay dambi dhaaf weydiisto دين تبا انتاسي كتاقن تايبولي جماع الدين
وحكم إذا أهمية استغفارته إلى ذهي وحيالات المامية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدين شري isagoo ilaahay u dhaafay dambigiisii horiya kii dambaba ayaa hadana wuxuu aad ugu dadaali jiray istighfaarta xadiidka fi sahih muslim ku sugan min hadith al-aghar al-muzani wuxuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam inni la astaghfiru allaha fil yawmi 100 marra anugu allah waxaan dambi dhaaf weydiisanayaa maalinkii 100 goor xadiidka abu hurayra sidoo kale fi sahih al-bukhari نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة إلهي بانكو دارتي مالك قديسة أنو إلهي دملاف وحان ويدي سنيا تضباطا قور كبضا أيان إلهي دملاف ويدي سنيا أنقنا يا ولي استغفر الله وأتوب إليه مركا نبي قال صلوات ربي وسلام عليه سقول له دملافي هذا محو بدسني محو بديني علشان واحد قرن يسا سيربا كوجرتا استغفارتا سان أكد أنه وذكري إلهي أذكارت اللي أقول له هذا كمذا فوائد أولي هنا الدنيا آخرة بالروحة وصامين أي كل هذا هيو وهليو انت سيدان أهمية إذا كقصوا بحنا فائدوين كيلا هذا وحكت المعنى استغفارتا وانت المامي دونا قاب كيبا الله استغفار صدا محا النبي كسوه صلى الله عليه وسلم محا قرآن كسا أروري وحكم ذا استغفار تفائدوين كيدا وحكم ذا نيل رحمة الله تبارك وتعالى إلهي نحريس تيسا شد لقو قاده والسبب قارسية إلهي نحريس تيسا نحريس ربنا وحي سوى ذا قليا نحريس تيسا الدنيا نحريس تيسا آخر وحكو تصيا نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركو قوم كيسا لها اللي وحكويري يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ما إلهي دنبلاف ويدي ستان سلا يدين كنا حريستو سيداس درادت استغفارتو وسبب من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى إلهي نحريستيسا يميشي تالو الدنيا آخرة إنا تهشو أسباب تيدا وحاكم ذا استغفارت ونحريستيسا وحاكم ذا جنة ونحريستيسا وحاكم ذا رضيهيس ونحريستيسا وحاكم ذا يعني وحوي نعم كيسا الدنيا نحريست الله تبارك وتعالى ويقدوينت وسعت رحمتي كل شيء إلهي نحريسي سوى قدوين تاي وحول بيقادا وحكم إذا استغفار تفائدوين كذا وحكم إذا الدون كان لقو برواقوبة هدي بلشتهي هدو قويسيهي هدو شخصيهي برواقع الدنيا أي فرأو تهي قرآن الكريم كم يرى بدن بقوة المامة روب بنوتو والصمد النحريس تيدا لهلو إن عرور إيو حولب الله يسسيو إن أسيندوين يبيرو ووين يبيا قلقل يوبيا الله يسسيو إلى بيئة وحاصلا وحافرأوا استغفارت نبي الله نوح عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام وكيلها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا قوم كيجي ربي وحان كويري ولله دمداف ويديستا الله ومتك دافد بدنه حتى إله دمداف ويديستان محد هليسا يرسل السماء عليكم مدرارا سمدي بو إلهي دين صدره والروبكي أيضا ضررسا لبعدي يروبكي وإسدبت شوغا وأنكلقو أينين بالله صوف صحيا ويمددكم بأموال وبنين هدي الروب لهلو برواقع إيمان صوما للكنا وحي كجري وصوصاريا كدبنا بني آدم كمركو لضنادو برواقع هلو محاكا دلني حوله وهليا وأنا دليا وترميا ويمددكم بأموال وبنين
alla wuxuu idin siyaadinayaa idin siinayaa xoolo iyo caruur ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا السندوين يبيروا وين يوبيال قلقليا وحاصر الله والله نسينيا ما حد كوه ليس وحاصر صبر وقع الدنيا ما هذا اللي بيدي كرنهش درجي هوصل صبح حوله ترمان بني آدم كي ترمو صبر وقع الدنيا ما فرهد محوية استغفروا ربكم واستغفارته لأنه وحوي استغفارته مركي بني آدم كو انت اسكو هلو وحاكد الله يبرك بني آدم كو وحلي هذا إنه حوغيستو قوة بني آدم كإنسان كقوة ديسو مركز إيمانيسا هرمر با إيمانيا حضارة إيمانيسا هرمر محوها وحنجا أود ميلتري با إيمانيسا أود بني آدم با إيمانيسا أقونتي با إيمانيسا أونتي عقلي با إيمانيسا قوة إيا أود بورك بني آدم كو يالانيا ومدى آياتك الإله كعبر تبارك وتعالى وأوليه هاي نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم إلا نبي الله نوح عليه وعلى نبي الله هود قوم كيلو دري عاد ضدك إلهي أبو ريكوه وحق بدن بيهاي وحق قودو انتو حجبيي يجيك قودو انتو لاقي وكوي ديجري من أشد منا قوة هو ذو هرتيا من نجح حق بدن بعنك إلهي أنه لو قوديس ربك أنا الله ذا هو إذن بابيني هرتيا من نجح حق بدن بع لمن كي نوح أبو حلي ورحق يا ودنا ثيستان متكلوا إلهي إذن قدري حق كلا الله ينسينيا أود كلا هليسان إلهي دم الله ويديست سيدا صدرت بس سرت إن جنب واحد تاعي بني آدم كو مركوسا أوجين أسرار تا كونك يا سننك إلهي كونك يا قوانين تا كونك وكم أمره كليه وحرمين يا مادة الرمين كليه واعتماد يا حق كيسا يا حسوسار كيسا يا قوة ديسو اعتماد يا لكن شدد قابن أو أودا يهرمرك يحضاردا يلقو قاري كرو وإلهي تبارك وتعالى إنه الشيء شرح وحكم ذا استغفارتا هديء مجتمع بديو إلهي أودا سويسيا وكذلك قيسك وكذلك الروح كليجيا إلهي تبارك وتعالى بلقات السماوات وحكم ذا وقرآن الكريم كي نوت المام فائدوين كاستغفار وحكم ذا المتاع الحسن راحين الدنيا أدون كان إن الأمور راحين أيضا وك ربي تبارك وتعالى قرآن كي نوت شيء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلهي دمدا فويديستا والله أبتا وإذين راحين يا راحين ونكسن كدبنا عدي ديرات الله تماد ديرات كيساس إلهي موسينا يا أبالكيس محال لقوضا استغفار يا توبة الله إمادة والله يدين راحينه بمعنى وحويان وحكستا وكيني كرا إنا نصتان أو راحيستان أو دكتان أي الله يدين سينا أمان كيف الله يدسينه أمني بالله يدسينه لأن أمني هو الراحة يحسلوني ذا أساس كذا وين أمان بعد هليسان مدني بعد هليسان عافيمات بعد هليسان لأن الروح توصل عافيمات قبل راحة ما جبتو
saas daraaddeed ba istighfaartu waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu ilaaliyo caafimaadka lagu ilaaliyo oo ruuxu uu isaga muxuu kaga xirsi xidho yani wax cudurrada marka waa lagu raaxayn caafimaad baa lagu siin raaxadii waxaa ka mid ah adduunyadaasi baahidaada aad qabto in la daboolo oo khalqiga aan lagu baahinin wax kugu filan ood ku noolaato in lagu siiyo raaxadii waxaa ka mid ah ama raaxayntii waxaa ka mid ah in qalbigaaga la dejiyo qalbigu kuu xasilo oo aad qalbiga ka dareento qanacsanaan iyo xasilooni iyo deganaansho iyo walwa iyo walbahar la'aan sidaas daraadteed yumaticukum mataacan xasanan wax walbaa soo gelaya ilaa ajalin musammaa waa inta adduunyadaad joogto adduunyada haddaad dhaaftana dee wixii aad camal la timid baad abaalkiisa leedahay istighfaartii iyo towbaddii wada socda oo asoon soo tilmaanay dembi dhaaf weydiiso khaladkana ka noqo ayaa fura u ah iyada faa'iidooyinkeeday ka mid tahay saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fabayana ana man waxadahu waاstaghfarahu matacahu mataacan xasanan ilaa ajali musammaa waman camila bacda dalika khayran zaadahu min fadlihi waxaa ka mid ah faa'iidooyinka istighfaarta waxaa ka mid ah qur-aanku sheegay soo aayadaha aan soo sheegnay waxay tilmaameen wixii khayr iyo wanaaga in istighfaarta lagugu siinayo ayib wixii dhib ah ee kugu imaan lahaana istighfaartaa lagaaga dafcinaya iyadana rabbi wuxuu ku sheegay fii suurati alanfaal wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastaghfiruun alle ma uusan ahaanin mid cadaabaya ayagoo dembi dhaaf weydiisanaya isagoo addoonku ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo oo khaladka ka noqonayo astaghfirullah ku haya la cadaabi maayo waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo oo astaghfirullah baan ku haynaa haddana waa rafaadnaya lianna astaghfirullaahidu iyo markaad ilaahay dembi dhaaf weydiisanayso waa inay israacsan tahay istighfaarta waxaan aan soo sheegnay ee qur-aanku sheegayo ka dhalanayso midda carabka keliya maaha midda uun adow mashquulsanoo maskaxdaada iyo dareenkaagu maqan yahay carabkaagu iska daldalmaya maaha waa mid qalbigaaga iyo carabkaagu israacsan yahay kadibna noloshaada ay raacsan tahay laakiin haddaad astaghfirullahi maadana ku hayso haddana waxa weeyaan qalbigaagii maqan yahay sax waa dikri waa lagu qoraya laa ilaaha ila allah iyo subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo xataa haddii qalbigaagu maqan yahay carabka waa la qori laakiin kaamil ma aha midhihii loo baahnaayee kaamilka ahana kama dhalanayo istighfaartan markaa qur-aanku ka hadlaya laga hadlayo ama adkaartan qur-aanku marka la leeyahay waxaasaa ka dhalanaya waa marka loo sameeyo si kaamil oo dhammaystiran sidii la rabay marka loo sameeyo adiga marka haddii aad istighfaarsanayso ama aad badinayso haddana waxyaalaha la sheegaya aad la'dahay adiga inaad istuhunto wey marka adaa si wax kaa yihiin istighfaartaadaa si wax ka yihiin dikrigaagaa si wax ka yihiin cibaadadaadaa si wax ka yihiin allah soo qur-aanka inooguma sheegin salaadu inay ruuxa xumaanta ka celiso ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu ruuxa tukanaya dembiyada xunxun iyo wixii la inkirayoo aan fiicnayn oo dhan bay ka celisaa salaaddu ka xakamaysaa ayib shantii salaadood waan tukanayaaye ma ii xakamaysa marka waa anigan qasanaya oo qabyaaladda iyo qashinka iyo xaaraanta cunahayo waxba u aaba yeelayn haddana shanta salaadood waan tukanayaa ma iiga celiyaan salaaddu ma ii xakamayso macnaheedu waxa weeye salaaddii ku xakamayn lahayd ma aha midaad tukanayso waa mid kale soo ma istighfaartan markaan aan ka hadlaynahay waa mid qaabka loo samaynayo ay tahay qaab israacsan qalbigii carabkii iyo xubnihii cadaabka markaa wax kastoo cadaab oo imaanaya
وروحك كو إيمانية استغفارته ويكهر تجيسا سبب إلهي هو كوبا شيء نقول لو يا عذاب حدنا مر لبك لو مروى لبو مروى عقوبه وهيستا وإن لقى قاضي بانزا مرنا ومد صوص حتو إن لقى عليا بانزا مر لبعد عذابك قرآنك الشيء لبس سبا وأوي ما دا أدومدا مد سماوي بالرادة توس حق الله كاجا إيمانه يسوون عدنا صومرين وان عدلا لصومرين ينبكوا عيا مدنا الضوامض اللجوء صومرين يا اللجوء صليدا يا عد كاحوك بدل اللجوء صليدا وعدو اللجوء صليدا وحولها قلقات وهذيك اللجوء دلو عروت هذا الرباطي والدين هذا الرباطي وخلق غير كم إذا اللجوء صو استعماله والنوع عذاب كم قرآن كنا عذاب وكذا ما يلا بدن بونا كتل ما ماي إني تهاي وعذابه مثلا الله تبارك وتعالى وحكوت المامي شبكي صحابة قاركود قال الله قاركود كسو قاري أيا وحكويري إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا شيطان با سنبري رحيي وحي كسبدين درادين شيطان كوحا لوغو صلدي وحي كسبدين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم عدو جينو إنو إذن كأت كاذا وقوبتها لإذن كلها يولا إذن كغرية يبحا كياني مركي سويديين ويداهدين سيكو العضي وحاليلي إذن كنفتي إن أكتي ذي كأهات إذن كأصابوها سومارك مركا وحويان مر دنبي أديك آدك الشيء واحد ذنوب تبين آدم كو قليو أي عذابك كو إيمانية دنبي عذابك كو إيمانية حداد كان نقطه والاستغفار لا تمات سببتي عقوبة كيني سيباد ماشا كسارتي سيداسا مركا عقوبة دينا ماشا وقب حيسا ساستنا ديد بعلمات وحيد هذان عقوبة مرنا عضو إلا الدنبي بيكون عضو لما نقاضو إلا توبة بالغو قاضا عقوباتك وحكم ذا bulshada ku dhaca Allah tabaaraka wa taala in laysku salido muslimiinta dhexdooda cadow banaanka ka yimid lagu salido oo lagu ciqaabo ama ayaga dhexdooda la isku ciqaabo waa nooc cadaabka kamid Allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الله وميدك أودا إنه عذاب كور إذن كاكام أما اللغة هوستوضا إذن كاكسوسا أما إنتو إذن كاكدقى كوح كوح إيو قروبيو إيو قبائل إن ليسكو كين ديرو مركا إن ليسكو كين ديراي والنوع عذاب كاكامل كي كورك إيماني يدولك هوستي سولينا كاكسوبحو إيو إنه ليسكو كين ديرو كل قوم هو عذاب صوما وعقوبة الله عدو باقو كتشبيو أو كقبصدو أو كأدونصدو أو كقبيستنا وعذاب الضومضة تشنك إيا إنسيك إيا إشا إيا إن لقو قصة لداي وأنه عقوبة عقوبات كاسورا كالتوس حقا اللي هو إيمانية إيا ميدك الضومضة لقو مرية الضومضة لقو قصة لدايو كل قد مركا اللي يسكت دارو الله تبارك وتعالى وحي كوهيستنا وحي كوقادا وحي كوقصة صعدنا كوباتشيها استغفارتا وانا معناها آيات تلماميسو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيقو أو حالة إلهي دم الله ويديسنا يان الله تبارك وتعالى مع عذابيه عذابك أما ميتك السماوي توسك هنقضو أما هنقضو ميتك أدومدك وصو مريا إلو وصل لدي هنقضو تامر كأنه كان معنا فإذا ينك واحد كم إذا استغفارته
dembiyada markuu addoonku uu galo oo uu dambaabo meesha ugu horreysay dembigu saameeyo uguna khatarsan waa qalbiga waana xarunta jidhka laga maamulo waa meesha hadday hallowdo nolosha ruuxu hallaabayso hadday hagaagtana nolosha ruuxu hagaagayso waa qalbiga saamaynta ugu horreysa dembigu wuxuu ku yeelanayaa qalbigu mugdiyeynayaa wuu daxalaynayaa wuu wasakhaynayaa istighfaartuna saamayntii dembigu qalbiga u geystay bay ka dhaqaysaa nabigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam xadiidka abi hurayra wuxuu leeyahay ina almu'mina idaa adnaba danban mu'minku markuu dembaabo dembi kaanat nuktatun sawdaa fii qalbihi dhibic madow baa qalbigiisa ahaanaysa yacni bar madow baa qalbigiisa ku dhalanaysa fain taaba wanazaca wastakfar hadduu dembigii ka noqdo oo ka baxo ka go'o oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto suqila qalbuhu aw saqula qalbuhu qalbigiisii marka waa la soofaynayaa waa la nadiifinayaa taxashii iyo xumaantii iyo wasakhdii qabsatay baa laga tirayaa qalbigu marka wuxuu soo ceshanayaa iftiinkiisii iyo awooddiisii iyo socodkii daacada ilaahay u socday khayrka u socday awooddii baa loo soo celinayaa iyo iftiinkii طيب hadduu sii watana oo uusan soo noqonin wain zaada zaadad buu nebigu sal alla alay wasalam xumaantii hadduu sii siyaadiyo sii wato ka soo noqoninna dhibcihii baa ziyaadaya taxashii iyo xumaantii qalbiga ku dhalanaysa markaa kordhaysa iyaduna ilaa ay qalbiga oo dhan qabsato oo qalbigu wada madoobaado nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam dalika arraan alladii dakarahu allahu fi lqur'aan kala bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waa middaa ilaahay qur-aanka ku sheego uu yidhi qalbiyadooda waxaa daboolay wixii ay kasbadeen haddii qalbigaagu madoobaado oo daxalaystana dee markaa adiga khayr kala fogaatee qalbigaagu marka wuxuu noqonayaa xarun shaydaanku uu fadhiisto dikrigii iyo wanaaggii iyo khayrkii iyo wixii o dhan baa ka baxaya kadib wuxuu jeclaanayaa xumaanta wanaaggii iyo khayrkiina wuu ka xajiimoonayaa waa ka cararayaa ma'wa shayaadiin buu marka qalbigaagu noqonaya marka istikfaartu qalbigay nadiifisaa xumaantii qalbigaaga gashay bay ka daahirisaa awooddii iyo iftiinkii iyo wanaaggii bay qalbiga u soo celisaa fawaa'ideeda ayay ka mid tahay antaa ku gaabsanno fawaa'id marka la soo koobo adduunka markaynu joogno laba shay baa inoogu muhiimsan waxaan rabno wanaagana inaan helno wixii ina dhibayeen ka baqaynana in laynaga qabto oo laynaga ilaaliyo jalbu almanfaca wa dafcu almadara dhibkana in lagaa celiyo wixii dheef iyo wanaagana in lagu siiyo intaba qur-aanku wuxuu sheegay istikfaartaa fura u ah ma rabtaa wanaag adduunya wanaag aakharo istikfaarta badso ma rabtaa in dhib adduunya dhib aakharaba lagaa ilaaliyo istikfaarta badso saas daraaddeed bay khayr adduunya mid aakharay fura u tahay xumaan adduunya mid aakhara in lagaa ilaaliyana xirsi xidh bay u tahay aanu nimaadno qaababka loo istikfaarsado waxaan rabnaa inaan istikfaarsanno qaabkeenu istikfaarsanayn siyaabo fara badan bay qur-aanka ugu soo aroortay sunnada nebigana ugu soo aroortay sal alla alay wasalam siyaabaha ay ugu soo aroortayna way kala fadli badan yihiin waxaa ugu fadli badan siiqada loo yaqaano sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkeeda waana midda imaamu albukhaari iyo keyrkii uu soo saaray min xadiidi shadaad ibni aws wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkeeda ugu fadli badani waxa weeye waa siiqadan allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت intaasi waa istighfaarta ugu fiican waxay ka kooban tahay inaad rabbi u qirto rububiyada allahumma anta rabbi allah rabbigay baad adaa i abuuray adaa ileh adaa imaamula adaa i taliya adaa i barbaariyay adaa gacanta igu haya allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت وعبادتي عد حق اللقوع عابد أما أن عابدي مجرون أذيك كأهين وحق قبولها خلقتني وادي أبورتي هذا إيه أبوري وأصل كاجي حاجات كتبي وأنا عبدك أضون كاجي بانا هذه كلمة من أضون كواه وأنا على عهدك ووعدك ballantii aan kula galay iyo yaboohaagii baan ku dul sugnahay ma stadactu intaan kari karo ilaahu ballantii baan ilaalinayaa intaan kari karo ilaan ballan baad rabbigaa la gashay soo ma innagoo muxuu ahay aan layna abuurinba dhabarka aabbaheen aadam inta laynaga soo ururiyey ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi alastu birabbikum soo rabbigiin ma ihi markaasaa waxaan nidhi balaa rabbiganna waa tahay cahdigaas aan horay u qaadnay ayaa waxaad leedahay rabbigu cahdigii iyo ballantii aan qaaday intaan kari karo waan ku dul sugnahay kadibna abuu'u laka binicmatika calaya ilaahu nicmada aad iigu nicmaysay baan kuu qirayaa wax alla waxaad nicmo isiisa waan qirsanahay وأبوء لك بذنبي ذنبي جيجنا وانقرنا يا حقرتي إن لقول نعمي نعمتي ماشي الروينة كالشكر جنا إلى تقوقع بالشيء ذنبي قوقع بالشيء فاغفر لي إله فاقر سنة إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذنبي حيث كلام رافته ميلك لنا العلماء هذا إله الذنوب تيدا إله أعوذ بك من شر ما صنعت إله وحان سمي شركي سان مغان كاغا دنبيادا aan galay wixii ka talan laha oo sharca ilaahu magan ba kaaga waxay kamid tahay adkaarta la akhriyo subaxdii iyo galabtii oo nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markuu galab gaadho ruuxii akhriya oo dhinta jannadu galay subaxdii ruuxii akhriya oo ku dhintana jannadu galay استغفارته وقفي يعني واتاس سيد الاستغفار وحكم إذا إن أتلاهذو أستغفر الله كليا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أيضا وحي كسا أرورتي حديث كثوبان وحي ثوبان رسول كان صلى الله عليه وسلم وحو أها مركو صلاة كبحو وحو لي جري أستغفر الله صدح قر كدبنا وحولي جري اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سأستراد أستغفر الله كري هذا محبل السعني وحي كم تأييدنا قاببك الله استغفار صدق استغفر الله وحي ميشا سينبرا يا حديثكم استغفارته مركز دنبك الشكرية كما صاب سنة عبادة إطاعة قداش شيطان والله استغفار صلاة حير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مكبح صلاة واجبة صومة أفضل العبادات البدنية هذا مع ذلك الصلاة وصلاة مكبح يبوح إليه هي أستغفر الله يعني وحيت الماميسة أدونكم مركو عبادة قتو عبادة دي قصب سيدي للربي أبدا ميسد وحبا كاردما إله وحي يقدمنا إضاف واي وحان خلطي إضاف صوما العبادة دي مو ذكيري كري مركوي كبيسا وحي عبادة كردن مي أما
dhibkii gaadhay bay cibaadada ka ilaalin istighfaartu sida khatmiga kale u tahay astaghfirullah iyadana way sugan tahay nabiga way ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam waxa kamida siiqooyinka soo arooray ee loo istighfaarsan karo inaad tiraahdo rabbi ighfir li rabbi ii dhaaf ya rabbi dambigayga dhaaf rabbi ighfir li wa quraanka ku timid rabbi ighfir li ولوالدي وللمؤمنين حديث النبي نبي كوسا أروتين كم استغفار النوعية ضعفي عن حيالي هذه استغفار صنية يا لا بد هذا والدنا وادو استغفار إله بدم لا فويدين مؤمنين تنودوا ويدين هو دعاء هذا النبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا روح كوسا أروت حديث أبي هريرة رسولك رب جيبوا كشيء وحديث القدسي الله وحده تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا أدون كيجي ذنبي بو ذنبابي مركزا وحده ربي اغفر لي ذنبي ربي ذنبي كيجي إله أدون كذنبي بو كلي مركزا إلهي وصل نقضي الله مركز الله وحوليه أدون كيجي وو ذنبابي كدي من الذنب داف ويديستي فعلم أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب الدون كاسي ذنب دافك يويديستي وحو أقادي إنه ليه ربي ذنبي كان ضدك عذابه أو عقابه ونضافي كرا ساسو ذنب دافي يويديستي وأضافي الدون كي مركز الله أضاف هذا الذنب كرو قال مركز سويلي ربي وهذا إضاف markaas alla wuxuu yiri adoonkaygi dambi kalu galay dambi dhaaf oo ii weydiistay isagoo og in aanu keligay dambiga dhaafo kuna ciqaabi karo hadana waanu dhaafay mar saddexaad buu dambiga ku noqday markaas uu yiri ilaah hadana ii dhaaf alla wuxuu yiri adoonkaygi wuxuu ogaaday inuu dambi galay anigu inaan dhaafi karo una ciqaabi karana waa ogaaday waana ii weydiistay inaan u dhaafo waa u dhaafay inta wixii ka dambeeyay wuxuu doona ha sameeyo buu Allah tabaaraka wa taala wuxuu doona ha sameeyo maxaa laga wadaa bimaana intuu ilaahay dambi dhaaf weydiisanayo oo xumaanta ka soo noqonayo wuxuu doona ha sameeyo laana markastood xumaanta ka toobad keento ilaahay waa ka aqbalay marka xadiiska waxa ku soo arooray rabbi ighfir li dhanbi ama rabbi ighfir li kali طيب waxa kamid ah siiqooyinka soo arooray oo iyadana nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari min hadith ibn umar wuxuu leeyahay abdullah ibn umar in kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil majlisi nabiga waxaan u tirin jirnay fadhiga hal fadhi oo fadhiyo baan tirin jirnay buu leeyahay وحدي جرى رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور بقول قر يقع الإنجيل وانترين جرى بولي رب اغفر لي الله يداف وتب علي توبة إذا أقبل إنك أذو أنت التواب متك توبة أقبل كبضنبات الغفور يدافي توبة أيضنا ومتك له رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وحكم ذا وصيغ صعر كم ذا إنها كو استغفار ستو كلية ها إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أيضا النبي كسرت صلى الله عليه وسلم حديث علي بن ربيعة وحليه هي وحنقوب شوقها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه والله كاني قاديد وفوله مركزو قاديد كفولي مركو لقطة صاري ركابكي لقو فوله هي نفك كيلا أي وحولي بسم الله مركو دشيدا كفريستي أي وحولي الحمد لله
كدبنا وحو يري وحو أخري آيات القرآن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون كدبنا وحو يري الحمد لله وصدح قرأك الكعلي كدبنا الله أكبر وصدح قرأك الكعلي وحو ساري هاي قادي كدوشي ساري كدبنا وحو يري سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كدبنا وقصلي مركزا وحلو يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت مؤمنين تأمير كودو محاد قصر شيء مركزا وحو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك نبي كان أركيبه للسيدان سمي سقو السمي مركزا النبي قصلي أنا أقول سيدي سيبانو قصلي مركزا وحا يقول يا رسول الله من أي شيء ضحكت مركو النبي قصلان كودو محاد قصر شيء رسول الله مركز النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يعجب من عبده ألا وحو لا عجب أدونكيس إذا قال اغفر لي ذنوبي إله ذنوب تيدا إيدا أفمركو إلهي أدونك ولا عجب وأبقى ربي تبارك وتعالى طيب يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري أسقو مركا عيد كالو الدنبي قد لا فكرت إني سنشرين أني قمويه ربي اغفر لي مركوله إلهي تبارك وتعالى أدونك ولا عجبا أبو داود يغير وصوصاري واحد صحيح سيغ صهر وروحا كم ذا إن تلاحظوا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أيضا وحيك صهر تحديث البخاري مسلم صوصارين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي رسولك وحكيري علمني دعاء أدعو به في صلاتي رسولك لو حد برتاه دعاء عن صلاة لحظة كنت عايزت مركز النبي وحكيري دعاء كنت عايز اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الله وحن ظلمي نفسي إذا ظلمي آذو بدل ولا يغفر الذنوب إلا أنت تنبيذا هي خلطاتك عن قالين كريقا هم بعد فكرة ملكلون لا هذه كرمتشرو فاغفر لي إلاف مغفرة رافضة من عندك أكتادك أحد وارحمني إن حريصه إنك أنت الغفور الرحيم وحكم إذا السياق صاء أروري وإذا النبي صلى الله عليه وسلم إن تلاذه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أيضا هو الصيغة الصغن وحيكوس أرورتي حديث بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم حليه أباه بن مقلي سوى أووغي إيقا ورمي رسولكم مقلي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف أدونكي سيدا إله والله في دنبكيس حتى goobta dagaalka muslimiinta iyo gaaladu iskaga hor yimaadeen mid ka cararay ba aha yaani meesha muslimiinta iyo gaaladu isku heleen safka adoo ku jiro dagaalka joogo furinta joogo dagaalka ku jira hadaad uu dabada jeediso cararto waa dambi weyn baabu bi ghadab wa ara ilaahi bay keentaa marka hatta kaas cararay oo xaru meeshii lagu dagaalamay ka cararay kaas dambiga uu galay ba ha galee dambi weyn ba ha galee sida haduu adoonku yiraahdo ilaahay waa u dambi dhaafaa macnaheedu iskala dilo yiraahdo dambiyada waa weyn ba ha ahaadeene ilaahay waa dhaafaya adoonku haduu sidaas yiraahdo astaghfirullah allah dhaafid weydiisanaya alladhi kaaso la ilaha mid xaq loo caabudo usajir illa huwa isaga mooy alhayy nool allah nool oo nolol kaamila oo nuqsaan aan lahayn bu nool wixii isaga ka soo haray noloshoodu waa naaqis isaga laakiin noloshiisu waa kaamil alqayyum keligii taagan oo cidna ku tiirsanayn adoomada maamulkoodana u taagan oo seexanin oo ka mashquulin oo wax kale ka mashquulin isaga u taagan adoomada iyo maamulka iyo koonka iyo kala wadidiisa wa atuubu ilayhi isaga uu noqonaya ii dhaaf waana soo noqonaya
والله ضافا يا أدون كاس أيضا وحي كم تأسيق صو أروري أبو داود بصو صار حديث كي غير كي مركوي فربديه السياقة سيقوين كصو أروري من الله ميتك أذكر قبصة تبع وصح استغفر الله ذات كقبصته وكلا وكسي في عيهن سيدا معاني ذا أي وطاني وكلا جدوين ته أينا وكلا فضل بديه توقف فضل بدن نسانت المعنى وسيد الاستغفار كأنه وهر مريني سياقا كلا جد سنة والله استغفار صدا وحديث النبي القرآن الكريم كقصة أروري يقوى كلا أين الشيء با مركا مرتدي سوح ويانا وكسو جبيننا عرب كاجا هكوبد نادو استغفارته ذكري كاجانا وحاضو بديسا استغفارته حلية جارهان قرآن كسي قوني أوت المام أو يعني وحوي حلية هرابته سحورته حلية صلاة الصبح كهر وكله حلية داسي أيها سيقوني أوت المامي قرآن كأوت المام أو محو أهاي نبينا صلى الله عليه وسلم أوت المامي حلية ربي سبدا سوكي أوسو دقيو أو أوليه هاي يا دم بداف ويديستا أو نو دم بدافا حليات كي أوفي وقتيد أوفي عنتها وبالأسحار هم يستغفرون يعني حلية أسحارتك استغفار تاسي وواح فضط ذكرك فضط بكمته هاي العبك عقام بان هدي حتى قلبك ومشغول سيها وحانت المانع عربك هذا كأخرده وعربك حتى كوبا دي سأجر وادهلي لكن ويسيك لفي عنتها يو مركع عربك هي قلبك ووضع السعودان ومعناها عربك وحو أخرين يا معناها سي قلبك الله السعودان isla markaana noloshaadu raacsan tahay oo aad tawbadii iyo soo noqoshadiina noloshaadu raacsan tahay xilligaas ay kaamil tahay marka waa mid culimadu yiraahdaan adoonku astaghfirullah inuu yiraahdo oo dambi gooniya ilaahay weydiistay inuu u dhaafo dambigiina uu ku jiro uusan ka tagin istighfar ma bal waxay leeyahay waa jees dambiga ilaah waan wadanayaa ii dhaaf waxayga waan iska wadanayaa ii dhaaf ribada dayn maayo ilaah ii dhaaf sinada dayn maayo ii dhaaf qabyaalada dayn maayo ilaah isaga ka ii dhaaf waxayna waa jees waxaas saas daradeed baa shardi asaasi u tahay markaad astaghfirullah leedahay oo aasaarteedu ka dhalanayso in noloshaaduna ay astaghfirullah raacdo oo xumaantii ka tagto وليبا انت كليه وينات كقوم موتوتي كان عدينا لانه وحويان الندامه توبه قوم مده كليgeed in qoomatood xanuunsato wixii ka dhacay ka xanuunsato inta saaba toobada laakiin hadaad ku faraxsan tahay waxaad samaysay dadka dishay xoolaha xaraanta ku qaadatay wixii aad xumaan samaysay waabad ku faraxsan tahay waana ku faanaysaa astaghfirullahna waa leedahay عيارسة استغفار معها ساس درادت با استغفارتو وإن قلبك يعربك يحضنه بإسرع سيهين نولا شادو رأسان تهي مركاسا يكرر ليسا فوائدا فرح بدن الشيء إنه إله فايدوين آخر يكوى الدنيا با إلهي توبة هين وافجيو خير كان هين وافجيو الله تبارك وتعالى وحي ذنوبه تنبيذ إنه بدن الله ينور دافو الله تبارك وتعالى هي خلدات قال إلهي هي نجا أستروها هي نجا دافو آثار تذكر الله يسنا الله تبارك وتعالى هي نجا إلهيو وحين يستنا الله نجا القاضو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم